Enzo Maresca oo shaaciyay sabab la yaab leh oo loo saaray Cole Palmer kulankii League Warsaw. Tababaraha Chelsea Enzo Maresca ayaa sharaxaad ka bixiyay sababta uu Cole Palmer uga saaray ciyaarta qaybtii hore ee kulankii wareegga sideedamaadka ee Europa Conference League oo ay la ciyaareen League Warsaw. Palmer ayaa ku bilowday safka hore ee ciyaartii ka dhacday dalka Poland, balse ma uusan soo laaban qaybta labaad. Chelsea ayaa la dhibtootay inay jebiso difaaca kooxda martida loo ahaa qaybta hore ee ciyaarta. Maresca ayaa sameeyay 2 bedel qaybta nasashada, wuxuuna saaray Palmer iyo Tosin Adebayo, isagoo keenay Noni Madueke iyo Levi Colwill. Tyreek George ayaa goolka furitaanka u dhaliyay Chelsea ka hor inta uusan Madueke dhalin 2 gool oo degdeg ah oo saxiixiga, isagoo sii wata horumarkiisa cajiibka ah. Kulanka kadib, Maresca ayaa xaqiijiyay in bedelka Palmer uu ahaa qorshe hore loo sii dejiyay. Wuxuu yiri, waxaan qorsheenay in Palmer iyo Tosin Adebayo la saaro markii la gaaro qaybta nasashada. Wax walbana sidaan u qorsheenay ayay u dhaceen. Waxaan ciyaarta u qorsheenay si aan u helno ciyaartooydeena ugu fiican, isla markaana aan u siino qaar fursad ay ku nastaan kuna soo ceshadaan tamarta, ayuu raaciyay Enzo Maresca.